Asalaamu calaykum, soo dhawaada. Maanta waxaan ka hadlaynaa maxaa sababo waxa la yiraahdo dhiigbax degdeg ah. Okay, afka qalaad waxaa loo yaqaanaa premature ejaculation. Okay, afka Soomaaliga waxaa loo yaqaanaa dhiigbax degdeg ah. Intaan gelin ka hor waxyaalaha idinka siiyo kadib aan idin sheego macluumaad ku saabsan. Okay, premature ejaculation waxaa la yiraahdaa qofka inuu biyo buuxo intuusan xaaskiisa u tagin ka hor. Okay, intuusan shaqada bilaabanin ka hor inuu biyihii si degdeg ugu yimaadaan waxaa loo yaqaanaa premature ejaculation. Okay, so maxaa sababa marka in ay xaaladaas qofka ku imaato? Waxyaabo badanaa sababa marka. Kow waxaa ka mid ah waxa la yiraahdo psychological waa wax inta ugu badan sababa waa psychological, laakiin ha iloowin waxa sababo oo saxda ah lama yaqaano. Okay, sida saxda ah waxaas sababo lama dhihi karo, laakiin waxaa jiro factors la dhihi karo waxyaabahaas sababo. Waxaa ka mid ah marka psychologically. Okay, psychologically macnaheedu maxaa waaye? Waxaa ka mid ah walwalka, stresska badan iyo niyad jabka. Saddexdaas oo isbiirsaday ama mid kasto wuxuu sababi karaa qofka inuu ku yimaado premature ejaculation. Okay, so marka macnaheedu waxaa waaye psychologically ahaan ay u badan tahay waxyaabaha sababa premature ejaculation. Sidoo kale waxyaabo kale ay sababi karo premature ejaculation uu ka mid yahay infections inuu sababo, sidoo kale prostate-ka inuu cillad ka jiro uu imaan karaa. Tusaale ahaan oo kale haddii qofkan xitaa hadda ka hor sexual abuse lagu sameeyo oo kale way imaan kartaa qofkan. So marka waxyaabahaas oo dhan waxay keeni karaan premature ejaculation. Haddaba marka su-aasha waxay tahay marka maxaa xal ah oo loo heli karaa dhiigbax degdeg ah oo lagu daaweyn karo? Maxaa la sameyn karaa? Ileen qofku wuxuu u baahan yahay marka wax u sheegtid xalkan inaad raacisid. Okay, xalka saddex qayb aan kula qaadi doonaa. Qayb waxay noqon doontaa maxaa la yiraahdaa la talin. Okay, qofka in lifestyle-kiisa noloshiisa in wax ka bedelo. Tusaale ahaan oo kale cuntadiisa inuu wanaajiyo, cunto isku dheelitiran inuu qaato, exercise badan inuu sameeyo ama jimicsi badan inuu sameeyo, walwalka iyo waxyaabahaas oo dhan inuu iska ilaaliyo. Okay, sababtoo ah waxaa dhahnay waxa inta ugu badan sabab waa psychological. So marka qofku waa inaa u daaweynaa marka psychological ama behavioral inaa u daaweynaa. So maxaa dhaynaa marka qofka exercise badan samee, jimicsi badan samee, iska yaree walwalka, walbahaarka, waxyaabahaas oo dhan iska ilaali. Isku day maxaa la yiraahdaa in aad iscontrolsha. Okay, next step waxaa marka haddii qofka uu xaaladiisa weli ay sii jirto waxaan sameynaynaa waxaan u qoraynaa daaweyn. Okay, sababta daawooyinka lagu qoraa waxay tahay waxaa ka tagnay kaliya waxa sababa premature ejaculation waxaa ka mid ah maskaxda fariimaheedii in ayada xataa cillad ku imaado. So marka waxaa dhacaya marka qofka intuusan galmoonin ka hor dareenka maxaa la yiraahdaa peniskiisa waxaa jiro waxa la yiraahdaa dareenkiisa jiro. So marka qofka waxaa laga yaabaa isla markii markuu wax taabto ama isla markii inuu wax markuu dareemaba dareenkiisa uu zaa'id noqdo inuu hore ka biyoba. Okay, so marka si ciladaas ugu hortagno kaliya waxaan u qori doonaa marka goomatooyin. Okay, goomatooyin aan qori doonaa oo la yiraahdo anesthesia, topical anesthesia la yiraahdo. Marka topical anesthesias waxay ka caawinayaan marka qofka in dareenkii uu yaraado. Okay, dareenkii uu ku bixi lahaa qofkan uu zaa'id ka ahay uu yareynaa marka. So qofkan marka haddii marka dareenka meesha aadin anaga qofka marka 30 daqiiqo ka hor intuusan u tagin ayuu marsanaa goomatadaas. Kadib markuu marsado kadib hooshii bilaabanaa. So marka goomatas maxay naga caawinay? Goomatas waxay naga caawinay marka qofkan dareenkiisa zaa'id ka ah ay yareynayaan marka meesha. Ileen waxaa laga yaabaa qofka isla markii inuu biibaho waxaa keeni kara dareenkiisa isla markii zaa'id. Okay, sababtoo maskaxda fariimaheedii waxay isla markii waxaa qofka ku tuura. So si ugu hortagno marka topical anesthesia soo qoraynaa dareenka si meesha loo dilo qofka marka sidaas ayuu marka xal ugu helaa. Lambarka saddexaad wuxuu noqonaa marka inaan u qorno daawooyin aad u waaweyn. Okay, daawooyin oo qofkan maxaa la yiraahdaa ka caawinayo inuusan dhiigbaxin karo. So daawooyinkaas waxaa loo yaqaanaa marka phosphodiesterase inhibitors. Daawooyinkaas marka maxay caawinayaan? Daawooyinkaas inta ugu badan runtii waa daawooyinka aad looma isticmaalo, dadka waa laga ilaaliyaa. Okay, qaasatan dadka da'da ah oo waayeelada ah runtii aad looga ilaaliyaa. Laakiin Soomaaliya markii aad fiirisid daawooyinkaas waxaa laga helaa farmashiyaasha, maxaa la yiraahdaa meelaha waxyaabaha qaar lagu gado waxaa laga helaa. So taas waa marka waa khalad. Okay, daawooyinkaas runtii waxaa fiican inuu kaliya dhakhtar qoro. Because daawooyinkaas waxay sameyn karaan inay dhiig maxaa la yiraahdaa
dhiigga yareeyaan, cadaadiska dhiigga yareeyaan. So marka khatar qofka wuxuu gali karaa marka in cillad wadnaha waxyaabahaas uu ku dhaco. Okay, so marka daawooyinkaas waxaa qori kara keliya dhakhtar. qof kale oo loo ogol yahay daawooyinkaas inuu qoro maaha. daawooyinkaas dhakhtar keliya qori karo. asiga markuu ogaado marka xaaladaada wuu qiimeyn doonaa dhakhtarka. xaaladaada markuu ogaado inay tahay inaysan xal kale ahayn daawooyinkaas ma ahane, daawooyinkaas lagu qori doonaa. So marka please khaasatan dadka waaweyn waxaa ugu digaa daawooyinkaas inaysan isticmaalin, okay, ilaa dhakhtar uu ka qoro, because intaan daawooyinkaas noqonin kahor waa in la ogaadaa xaaladaada caafimaad, qaabkeeda, waxyaabaheeda. So marka laakiin Soomaalida inta badan waxaa waaye farmashiyaasha laga helaa magac oo caana jiro oo loo yaqaano, keliya waa lasoo gataa waana la isticmaala. So marka saddexdaas shay lagu daaweeyaa. aan soo sheegnay in qofka behavior ahaan, maskaxiin ahaan loo daaweeyo, qofka maxaa la yirahdaa in loo daaweeyo maxaa la yirahdaa topical ahaan anesthesia. in topical anesthesia maxaa macnaheeda kareemo waa macnaha, okay, kareemo inuu qofka meesha marsado. sidoo kale in lagu daaweeyo qofka daawooyin caadi inuu qaato, okay. xalka saddexdaas ayaa lagu heli karaa. So waxyaabaha kale qofka aan ka digayna wuxuu yahay inuu badsado maxaa la yirahdaa oo keeni kara premature ejaculationka. waxyaaba inuu isticmaalo gacantiisa oo kale, gacantiisa inuu isticmaalo, waxyaabahaas runtii ayagan way ka qayb qaadi karaan inuu qofka si degdeg ah u imaado. So marka waxaa isku daydaa marka in maxaa la yirahdaa ka fogaatid waxyaabahaas oo kale. sidoo kale inaad isku dheelitirnaataa noloshaadana, cuntada cunaysid inay ahaataa balance, exercise badan inaad sameysaa, behaviorkaaga inay wax ka bedeshaa. insha Allah waxaan rajeynaa inaad isbedel badan sameyn doontid. haddii further detail u baahan tahay, macluumaad badan u baahan tahay, su'aalo aad qabtid, please xagga comment inoo dhaafa. video aan kasoo diyaari doonaa anagoo khaasatan insha Allah ka jawaabi doona su'aalihiin oo dhan. haddii aan soo weydiisaan waa ka jawaabi doonaa insha Allah tacaala, waana idin sheegi doonaa xalka ugu wanaagsan ee aad heli kartid insha Allah. So thank you guys, bye bye.